caanimadu dad way soo raadsataa, dadna iyaga raadiyo oo rafaad badan u mara, halka qaarkoodna ay si xun ku raadiyaan si ay mar un caan u noqdaan. waxaa maalmahan si aada baraha bulshada looga hadlayaa hees ay ku luuqaysa fanaanada Nimco Habi. heestan oo si weyn looga daba dhacay ayaa soo jiidatay dad aada u fara badan oo ajaanib ah oo isticmaala baraha bulshada, ayna ka qayb yihiin fanaaniin iyo mataajilistayaal caanka ah dunida. kadib markii ay heesta Isii Nafta ee fanaanada Nimco Habi ay xargaha goosatay oo malaayiin taageeraha adduunyada dacaladeeda ka heleen, ayay heshiis la saxiixatay shirkadda maamusha heesaha ee Bailedo Records si loo ilaaliyo xuquuqda heestaasi. Nimco Habi oo hadda Muqdisho ku sugan ayaa la sheegay in loo qaban qaabinayo casuumaad ay ku tagayso dalka UK si bal taageerayaasheeda dunida ku faafay ay u hor istaagto mar un. 4 sano ka hor hees ay soo qaaday ayaa mar qura u shidantay, dunidana ku faaftay, dadkuna ay bilaabeen in xafladaha iyo isku imaatinka badi laga shido weliba maalmihii ugu dambeeyay. heestan ayaa sidoo kale soo jeedatay warbaahinta adduunyada qaarkood, iyaga oo wax ka qoray sababta heestan ay sidan ugu soo shaac baxday. Nimco oo shalay kusoo biirtay barta TikTok ayaa 24 saac gudahood waxaa soo raacday dad 200,000 kor u dhaafay. sidoo kale isla shalay ayay heshay calaamada buluugta ama TikTok buluuga ah oo la siiyo dadka caanka ah. muuqaalo kooban oo ay soo gelisay barteeda TikTok ayaa waxaa midkiiba daawatay in ka badan 4 milyan, dadka la soo hadlayana ajaanib ayaaba ugu badnaa. marka la eego muuqaalada ugu badan ee lagu baahiyo baraha bulshada ayaa ku saabsan heesta Nimco Habi ee Isii Nafta, waxaana ka falcelinaya dad u badan ajaanib caanka ah dunida, kuwaas oo marka dareenkooda aad eegto ay u muuqdeen kuwa aad iyo aad heesta uga helay oo weliba iyagu ay aada u cajabisay. waxayna bilaabeenba inay isku xujeystaan heestaasi oo qofba qofka kale uu markaa ku xujeysto oo challenge ahaan markaa iyagu ay usoo qaadaan. waxaa la sheegay in waxa xiisaha badan u yeelay heestan una soo jiiday dhageystayaal caalamka inay tahay heestan oo ereyada ku jira ay yihiin luuqado kala duwan, taasoo dadka dunida qaarkood ay fahmayaan ereyada heestaasi ku jira. heestan ayaa la sheegay in aada looga dhageysanayay maqaayadaha lagu caweeyay magaalooyinka London iyo New York maalmihii lasoo dhaafay. taasina waxay muujinaysaa in dad aad u fara badan oo dunida ku nool ay taageerayaal u yihiin Nimco Habi iyagoo aan weli arkin. aalada TikTok ayaa ahayd meesha ugu badan ee heestan lasoo dhigayay oo dadku ay isku xujeysanayeen, waxaana qayb ka ahaa challenge-gaas fanaaniin caanka ah dunida oo la jecel yahay, kuwaasoo heestan iska soo duubayay. bilihii laga soo gudbay waxaa heestan ka daba dhacay malaayiin qof oo adeegsada baraha bulshada. Nimco Habi oo wareysi siinaysa warbaahinta BuzzFeed News waxay sheegtay inay ku faraxday markii ay dhawaan aragtay in heesteeda si weyn ay u qabsatay caalamka. aad baan ugu farxay, dareenkayga ma cabiri karo, waxaan ogaaday in adduunka la iiga aqoonsan yahay, haatan waxaan ahay qof caalami ah, ayay tiri Nimco Habi. waxay intaa ku dartay in heesteeda ay soo jiidatay dadka ajaanibta ah, islamarkaana ay ku faraxsan tahay in dhaqanka Soomaalida la jeclaado, heesteedana ay qayb ka tahay. waxaan arkay heesteyda oo ay ku luuqeynayaan wiilal cadaan ah, sidoo kale gabdha Aasiyaan ah ayaa ku heesayay, dhammaantood waan daawaday, ayay tiri. Nimco Habi waxay 2015 kusoo biirtay fanka iyo suugaanta, waxayna xilligaa bilowdeen heesaheeda ay geliso baraha bulshada. haatana waxaa soo caanbixiyay heestan oo markii ugu horeysay la duubay sanadkii 2017. waxaa la isdhihi karaa arrintani waxaa qayb ka qaatay baraha bulshada oo ay dhalinyarada Soomaalida si weyn u adeegsadaan. fanaaniin iyo majaajilistayaal caan oo u dhashay wadanka Mareykanka ayaa ka mid ahaa dadkii iska soo duubaya muuqaalka heesta Isii Nafta ee Nimco Habi ay ku luuqayso. haatan Nimco waxay caan ka tahay adduunyada, qof walibana waxa uu hadda doonayaa in mar un ay hor imaato. gabdho fara badan oo ku nool Aasiya
isla markaana aad u soo duubaya heestan ayaa tilmaamay in ay mar un jeclaan lahaayeen masrax ay iyadu fankeeda kusoo bandhigayso Nimco in ay qayb ka noqdaan oo ay soo xaadiraan. caanimadu dad way soo raadsataa, dadna iyaga raadiyo oo rafaad badan u mara, halka qaarkoodna ay si xun ku raadiyaan si ay mar un caan u noqdaan. waxaa maalmahan si aada baraha bulshada looga hadlayaa hees ay ku luuqaysa fanaanada Nimco Habi. heestan oo si weyn looga daba dhacay ayaa soo jiidatay dad aad u fara badan oo ajaanib ah oo isticmaala baraha bulshada, ayna ka qayb yihiin fanaaniin iyo mataajiliistayaal caanka ah dunida. kadib markii ay heesta Isii Nafta ee fanaanada Nimco Habi ay xargaha goosatay oo malaayiin taageeraha adduunyada dacaladeeda ka heleen, ayay heshiis la saxiixatay shirkadda maamusha heesaha ee Bailedo Records si loo ilaaliyo xuquuqda heestaasi. Nimco Habi oo hadda Muqdisho ku sugan ayaa la sheegay in loo qaban qaabinayo casuumaad ay ku tagayso dalka UK si bal taageerayaasheeda dunida ku faafay ay u hor istaagto mar un. 4 sano ka hor hees ay soo qaaday ayaa mar qura u shidantay, dunidana ku faaftay, dadkuna ay bilaabeen in xafladaha iyo isku imaatinka badi laga shido weliba maalmihii ugu dambeeyay. heestan ayaa sidoo kale soo jiidatay warbaahinta adduunyada qaarkood iyaga oo wax ka qoray sababta heestan ay sidan ugu soo shaac baxday. Nimco oo shalay kusoo biirtay barta TikTok ayaa 24 saac gudahood waxaa soo raacday dad 200,000 kor u dhaafay. sidoo kale isla shalay ayay heshay calaamada buluugta ama TikTok buluuga ah oo la siiyo dadka caanka ah. muuqaalo kooban oo ay soo gelisay barteeda TikTok ayaa waxaa midkiiba daawatay in ka badan 4 milyan, dadka la soo hadlayana ajaanib ayaaba ugu badnaa. marka la eego muuqaalada ugu badan ee lagu baahiyo baraha bulshada ayaa ku saabsan heesta Nimco Habi ee Isii Nafta, waxaana ka falcelinaya dad u badan ajaanib caanka ah dunida, kuwaas oo marka dareenkooda aad eegto ay u muuqdeen kuwa aad iyo aad heesta uga helay oo weliba iyagu ay aad u cajabisay. waxayna bilaabeenba inay isku xujeystaan heestaasi oo qofba qofka kale uu markaa ku xujeysto oo challenge ahaan markaa iyagu ay usoo qaadaan. waxaa la sheegay in waxa xiisaha badan u yeelay heestan una soo jiiday dhageystayaal caalamka inay tahay heestan oo ereyada ku jira ay yihiin luuqado kala duwan, taasoo dadka dunida qaarkood ay fahmayaan ereyada heestaasi ku jira. heestan ayaa la sheegay in aad looga dhageysanayay maqaayadaha lagu caweeyay magaalooyinka London iyo New York maalmihii lasoo dhaafay. taasina waxay muujinaysaa in dad aad u fara badan oo dunida ku nool ay taageerayaal u yihiin Nimco Habi iyagoo aan weli arkin. aalada TikTok ayaa ahayd meesha ugu badan ee heestan lasoo dhigayay oo dadku ay isku xujeysanayeen, waxaana qayb ka ahaa challenge-gaas fanaaniin caanka ah dunida oo la jecel yahay, kuwaasoo heestan iska soo duubayay. bilihii laga soo gudbay waxaa heestan ka daba dhacay malaayiin qof oo adeegsada baraha bulshada. Nimco Habi oo wareysi siinaysa warbaahinta BuzzFeed News waxay sheegtay inay ku faraxday markii ay dhawaan aragtay in heesteeda si weyn ay u qabsatay caalamka. aad baan ugu farxay, dareenkayga ma cabiri karo, waxaan ogaaday in adduunka la iiga aqoonsan yahay, haatan waxaan ahay qof caalami ah, ayay tiri Nimco Habi. waxay intaa ku dartay in heesteeda ay soo jiidatay dadka ajaanibta ah, isla markaana ay ku faraxsan tahay in dhaqanka Soomaalida la jeclaado, heesteedana ay qayb ka tahay. waxaan arkay heesteeda oo ay ku luuqeynayaan wiilal cadaan ah, sidoo kale gabdha Aasiyaan ah ayaa ku heesayay, dhammaantood waan daawaday, ayay tiri. Nimco Habi waxay 2015 kusoo biirtay fanka iyo suugaanta, waxayna xilligaa bilowdeen heesaheeda ay geliso baraha bulshada. haatana waxaa soo caanbixiyay heestan oo markii ugu horeysay la duubay sanadkii 2017. waxaa la isdhihi karaa arrintani waxaa qayb ka qaatay baraha bulshada oo ay dhalinyarada Soomaalida si weyn u adeegsadaan. fanaaniin iyo majaajiliistayaal caan oo u dhashay wadanka Mareykanka ayaa ka mid ahaa dadkii iska soo duubaya muuqaalka heesta Isii Nafta ee Nimco Habi ay ku luuqayso.
haatan nimco waxay caan ka tahay adduunyada, qof walibana waxa uu hadda doonayaa in mar un ay hor imaato. Gabdho fara badan oo ku nool Aasiya isla markaana aad u soo duubaya heestan ayaa tilmaamay in ay mar un jeclaan lahaayeen masrax ay iyadu fankeeda kusoo bandhigayso Nimco in ay qayb ka noqdaan oo ay soo xaadiraan.